daawadayaal maanta waxaa inii wadnaa 5 arrimood oo ciyaalka caafimaadkooda u fiican iyo koriinkooda oo istaalna aad uga maaranto nala socda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaaleyga qaaliga waxaa maanta inii wadnaa wax ku saabsan ciyaalka koriinkooda iyo caafimaadkooda oo istaalna uga maaranto channelka dad ku cusub tahay subscribe saar si aad waxyaalo badan oo faa'iido leh aad nooga faa'iido adigana kambalaalkana furo. midda koowaad waa masaasada cunuga waa inaad ka nadiifiso buraash loogu talagalaa jira ama jubbooyinka caanaha ciyaalka lagu siiyo waa inaad nadiifiso ood ku dhaqdo saabuun marka ugu hore saabuunta kadib dad waxaa jiraan biyo ku karkariyo jubbadaha caaga ama balastiga wax kasta oo caaga ma fiicno inaad biyo lagu karkariyo dhib badan uu keeni karaa biyo kulul inaad ugu dhaqdo waaye. midda kale waxaa waaye inaad ciyaalka cunuga aad masaasadooyin badan ama jubbooyinka waxa aad caanaha ku siinaysa 1 iyo 2 aad uga dhigin oo waxyaalo badan ugu talagasho oo safe u noqdaan oo si aad hadhowto kuwii oo nadiifsan oo kuu sii yaaleen aad cunuga ugu siiso caafimaadkiisa si aad uga taxadari. midda labaad oo iniga faa'iideyn rabo oo dadka badi ay aqoon u lahayn waxaa waaye ciyaalka caanaha wax loogu daro biyaha ciyaalka loo karkaranayo horta oo caanaha loogu qaso caanaha boodarka dadka caana xoolo saafi haystaan kama hadlaya dadka caanaha boodarka isticmaalaan waxaa jira ciyaalka wax caanaha loogu daro xulbada aad biyo ku karkarinaysaa 5 mir camal biyahaad ku karkariso waxaad ku shubanaysaa tarmuus ama falaas qofka sidoo u yaqaano biyahaas oo ku karkarsan markaad cunuga caano u qasaysa markasta waad ugu shubanaysaa cunugaas asaga caafimaadkiisa maasha Allah wuu noqoni caloosha bacteria ogama dhalanayo wax istaal dhaho cunuga xulbada lagu caanaha loogu karkariyo biyahaas wax istaal dhaho uma baahna cunugaas markasta maasha Allah ani wax aan ka faa'iido waaye. midda labaad waxaa waaye cunuga inaad sokor yar oo sokorta caanaha uga badinin sokor badan ciyaalka uma fiicno sokor yariisa waa inaa ugu dartaa biyaha aad u karkarinaysa markasta biyaan qasi oo caano ku karkarin hadaa dhadana adiga markasta bini aadan baa tahay sokorta kaaga badan kartaa marka waxaa waaye inaad hal mar u karkariso biyo fiican oo maalintii cunuga aad ku hayni karto oonad xulbadina ku karkarise sokortina ku karkarise si caafimaadkoodana taam u noqon cunuga caafimaadkiisa waxaa waaye wax aad u fiican xulbada Soomaalidana aad uma garanayaan ciyaalka inay xulbada daawo u taho. mid saddexaad cuntada u fiican ciyaalka ama caruurta mooska cagaarka oo loo yaqaano matoke dadba qafay u aqaanan kulay ana matoke iyo mooska cagaarka baan dhahnaa matoke iyo waxaad iskugu daraysaa koosta ama spinach aad iskugu karinaysaa koostada markay karto waad meeri sidaas kuma siinaysid cunuga aad ugu fiican ciyaalka waad saddexdaas aad iskugu daraysaa iyo bocorka ama malenge qofba sidoo u yaqaano kulay anaga halkan joogno luqada malenge laga dhahaa bocorna waa la dhahaa saddexdaas aad iskugu daray maasha Allah cunto aad u wanaagsan waay oo cunuga la siin karo. iyo fruitka ciyaalku u fiican yahay especially apple-ka iyo qaraha aaday ugu fiican ama tufaaxa aaday ugu fiican iyo canabka ciyaalka aaday intaad cunuga wax macaan nacnac ay siin lahayd cunuga fruitka ugu dadaal ilkahana kama halaabayaan waana wax caafimaad iyo aad ugu fiican ciyaalka oo aad ugu fiican adiga waad ka heli doontaa hadaad cunuga u badiso fruitka ama ciyaalka aad u badiso fruitkood ka daysan nacnaca iyo waxa macaan. midda afraad waa cabitaanka uu kala baxaa biyaha cad horta cunuga waa ina aad ugu dadaashaa biyaha cad waa waxa muhiimada u ah cunuga markasta oo cunto siiso waa ina biyo cad aad siisaa. cabitaanka kale waxaa waaye afkaadhada ciyaalka aaday ugu fiican tahay oo caana ugu dartay oo caana loogu qasaayo
afkaadhada cunuga. Afkaadhadana way kala tahaa afkaadha iyo inii taagnaanin. Afkaadhada mid saliid laa jirtaa iyo mid aan saliid lahayn. Inaad kala barato isku day afkaadhada saliidda lahayn iyo midda saliidda leh. Cunugana waxa aad ugu fiican oo haddii cabitaan juice ahaan la dhaho waa afkaadhada caanahaad ugu dari. Cunuga hadduu yar weyn 4 sano 3 sano meelahaas jiro xataa waxaad ugu dari kartaa meesha sokor ugu dari lahayd timirtaad ugu dari kartaa intaad biyo la yar dhigto aad ugu shiidi kartaa booska timirta u geli waana wax aad ugu fiican cunuga. Siba ilmaha timirta zaid uma cunaan yaryarka ah. Timirta markaa waad ugu qasi waad la biyo la yar dhig kadib waad ugu dari waad ugu shiidi juice-ka afkaadhada aadayna u fiican tahay ayadana maasha Allah. Mid shanaad waxa waaye cunuga meeshuu seexanayo waa inaa ogaato ciyaal waxaa jiraan hurdo xun oo gadgudoon badan oo sariiraha ka dhici karo. Cunugaas camal waa inaa sariir asaga safe oo ka dhicin. Ilmaha hadday dhacdhacaan maxaa ku dhacaan ilmaha badiga dhigaha dilaacaan madax xanuunka iyo waxay ka qaadaan dhicitaanka ama jugta faraha badan. Cunuga si aad uga taxadarto. Midda kale gogasha uu ku seexanayo cunuga waa inaad gogol nadiifa oo markaad seexinayso gacanta aad ka mariso aad ogaato. Waxaa waaye midda kale inaad cunugi markaad seexinayso cunuga aad u qabayso oo diyaarise oo hurdo u diyaarise uu noqdo cunugaas uu ka seexan si nadaamsan uu u hurdi oo calooshana u buuxdo oo dharagsan. Ciyaalka camal bambaska loo xiro ama xafaayada cunuga markaad xafaayadu xirayso waa inaa u mariso Vaseline ama saliid Vaseline-ka jileeca oo saliid camal ah wax yar aad ka mariso dhinacyaha si ay cunuga bambaska u qabanin ama xafaayada cunuga ay u qabanin ay si dhib ugu keenin. Ilmo waxaa jira maruubo ciyaalka isku wada jir ma way kala yihiin. Ciyaalka qaar waxaa jira wax yar xafaayada haday ku daahdo ku maruubo cunuga markuu habeenkii ku seexda ciyaalka hurdada ku daaha camal waa inaa ka bedeshaa markaad adiga soo kacdo oo waqtiga 8 saac camal cunuga adi waqtiga aad hurdada aad soo kacdo waa cunuga inaad ka bedesho xafaayadaas si ay cunuga hadhowta uu dhib ugu keenin. Waa inaad ka taxadartaa markasta cunuga caafimaadkiisa dhinac kasta waa inaad ka taxadartaa. Channel-kan waa channel iniga faa'iideynayo walaalahayga gabdhaha walaalahayga oo aad u jecelaho waanad ka faa'iidi doontiin insha Allah. Waxa oo jeceshiina comment-ka igu soo qora si aad ula socotiin channel-ka wax kasta oo ka socdana waa inaad subscribe dhahdeen oo gambaleelkana furatiin. Khayra inii rajaynaya insha Allah ciyaalka waxyaalaha u fiican waa inii soo badin doonaa si ay gabdho walaalahay iga codsadeen ciyaalka caafimaadkooda waa inoo video ku xigo insha Allah.